gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ejneeriso ayaa kormeeray xarunta maamulka deegaanka Garisbaale ee gobolka Banaadir halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen maamulka deegaanka saraakiisha laamaha amniga qaybaha bulshada rayidka iyo barbaarta gaashaaman intaasi kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale waxaa kulan isugu jiro afur iyo soo dhaweyn loogu sameeyay xarunta maamulka deegaanka Garisbaale kaas oo lagu muujinayay amniga iyo horumarka ka jira deegaankaasi kulanka afurka kadib ayaa gudoomiyaha deegaanka Garisbaale mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare ayaa ka codsaday dowladda dhexe iyo maamulka gobolka Banaadir in ay il gaar ah ku hayaan deegaanka Garisbaale maamulkeena sharafteena waxaan ka codsanaynaa Garisbaale maanta waxa way joogaan way nala afureen way nagu soo boqdeen mar labaad iyo mar saddexaad waan uga mahad celinaynaa maamulkeena sharafteena waxaan leenahay iyagoo dikireeto ma bixiyaan oo jaabkooda kuma jirto laakiin waxay gudbi karaan muxuu ahaay soo jeedo ay gudbi karaan waxaan leenahay naga gudbiyaan tala soo jeed wanaagsan waxaan leenahay waxaan sheeganayna maahan waxaan hadal iska dhaana macnaheedu maahan waxaan diyaar u nahay guddiga la soo diro waxaan leenahay itusa taabsi waa soo taabsinayna guddiga la soo diro xaqiiq raadisa wax kastoo sheeganayna la aaminin waa tusayna waana taabsinayna xildhibaan Maxamed Axmed Abdidoon iyo xildhibaan Sharmaarke Garaad Salebaan oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxa ay goobta ka sheegeen in ay gudbin doonaan baahiyaha dadka deegaanka annagana wixii ay nooga baahdaan gacan iyo garabba runtii aad iyo aad baan diyaar ugu nahay waana idinku hambalyeynayna inaad xuquuqdiina aad xaq u leedihiin ee muwaadinimo degma ahaan aad runtii u doodaysaan aadna muujiseen dadaal inaad idinku isku kalsoonaataan annaga waxaanaan idiin sheegin intaanaan afurka imaanin ka hor waxaan soo marnay deegaanka waxaan soo aragnay wax walba oo looga baahan yahay degmo inay leedahay reer Garisbaale inaad leedihiin meel ciidamada degaan inaad leedihiin goobo waxbarasho inaad leedihiin goobo caafimaad inaad adinkii dhisateen xaruntii degmada magaalada inay koronto leedahay wax walba inay leedahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ejneeriso waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir uu yahay maamulkii shacabka waxay ka tarjumaysaa sida ay diyaarku ugu yihiin in ay deegaanku u noqdo deegaan horumara la jaan qaada deegaanada kale isla markaana uu helo dhammaan xuquuqihii uu istaahilay annaga ka maamul gobol ahaan waxaana maamulkii shacabkana rabitaankooda ayay tahay nidaamka dimuqraadiyadda marka shacabka rabitaankiina waa dhageysanay odayaashii dhaqanka waa dhageysanay waxaan kaloo dhageysanay qaybihii kala duwan bulshada intaas ka sokow waxaan u baahannahay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa arrimaha sugidda amniga arrimaha sidii kaalin uga qaadan lahaayeen bixinta canshuuraha oo muhiim u ah horumarka caasimadda Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho